وري لقبو أو كاميرا أقل لوجو حلو أو عودة دي برنامج كلا ديجو ولي عالم كلا جمارك إسلام نبضنا اللي جمارك Soomaalina lagu maarag ciida galas laga arkay iyadoo la hadalay maalmihii ugu dambeeyay ay shir fadhiyeen odayaasha labada dhinac ee ka soo kala jeeda Safiya Tusmi iyo Cabdi Cajuun ayaa haddaba waxa caasimada Soomaaliland ay Hargeysa caaw shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah odayada Safiya Tusmo kuwaasi oo sheegay in odayadii beesha uu ka soo jeeday Cabdi Cajuun ay gabi ahaanba ka bixeen ballamihii ay wada lahaayeen labada dhinac waxaana ay ku eedeeyeen arrinkan inay la ogyihiin odayaashiisu waa sida ay hadalka u dhigeen isla markaasina ay ku raacsiin dhaqankani foosha xun ee uu ku sameeyay Safiya Tusmo iyagoona digniin adag u diray beesha uu ka soo jeeday Cabdi Cajuun waxay hadaladoodu u dhignaayeen sidan Bismillahir Rahmanir Rahim anigoo ah aqal jaamac Nuur Cabdi waxaan halkan aan ka sheegayaa ama shirka jaraa'id baa u qabanay dhacdadii gabadhii Safiya Tusmo ku dhacday oo gilgishay Soomaali idilkeedba gabadhaasi beesha ay ka dhalatay baan anagoo ah Bahabar Cabdalla Makaahila dhacdadaasi markay dhacday Booramaan joognay waan aragnay waan soo soconay Hargeysa nimid reerkii ninka oo ka dhashay ayaa ninkii soo dhaweeya waa ciida gale ani Yoonis iyo ciida gale weey waa gudoomiyihii waxaan helay garxajis ninka Cabdi Guuleed la yiraahdo aqladii wuxuu noo keenay garxajis oo dhan waan wada hadalnay gabadhaas maankeegii iyo maalkeegii baa la isku daray dhacdo fool xun oo Soomaali wali ka dhexdhicin ayaa lagu sameeyay wari la qabo oo kamarada aqal loogu xidho oo cawdadeedii barnaamij la dhigo wali caalamka lagu maarag Islaam nabadana lagu maarag Soomaalina lagu maarag ciida galas laga arkay arintii caynkaas ahayd waan ka wada hadalay waxaan nidhi gabadhaas laba qodob baan soo jeedin waxaan nidhi gabadhaas halkaad ka ceebeysan kaalay ka raali geliya magteediin halkaas soo dhiga waxay noogu jawaabeen inankayagu wuxuu nayidhi oo duqeydii dhanida ciida gale waxa ma qabo buu nagu yidhi ee aan isku noqday walaalahay oo ballan ay qabta way nala meerastay 3 maalmood bay qabsadeen khamiistii shalay ku ekay khamiistii shalayna kolkay mataqaanaa ay arrinkii kiira soo dhuuxeen inay waxaan ay qabaan ogaadeen hawada ka baxeen oo waa la jabay way jareen sida darteed annagoo ah beeshii duqeydii Cabdalla Makaahila waxaan garanay in arrintan bakayar ay mataqaanaa odayadu arrinta ka dambeeyaan oo waxaan uu sameeyay dhaqankan xun ila iyagu raacsan yihiinba oo u dhan yihiinba ayaan mataqaanaa ogaanay sidaa darteed gabadha mataqaanaa Safiya Tusmo inanka waxaan sameeyay iyo hablaha ciida galana farxi maayaan inanta Tusmo iyo hablaha Makaahila la dhashayna oo imaayaan ee siday kuwaasi u ooyeen hablaha Makaahila iyo gabadha Tusmo ay hablaha ciida galay iyo inanka hirnimo u ooyi doonaan haddii mataqaanaa si Soomaali maanta way arrintan way wada gaadhay haddii sida ugu dhaqsiyaha badan la arrintan loo gaari waayana dib weyn baa ka dambeyn Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala Muhammad wa aniga oo aqal Bahabar Cabdalla kuwa Bahabar Cabdalla mataqaanaa odayaasha ugu waaweyn kamida la weyn waxaan ka warbixinayaa dadcadii ku dhacday gabadha Soomaaliyeed Bahabar Cabdalla Tusmo wilaayadaado taasoo bariyaha ku jirta arrinkeed markii fadeexada iyo ceebta miidiyaha ee islaamnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxa ku jira ku aragnay waxaan raasinay cid wax ka dambeysay waxay noqotay nin qabay oo ciida gala ninkii iyo jilibkoodii iyo annagoo Bahabar Cabdalla waxaan isku gabnaa Hargeysa weeygiyo
waxay fariisanay guri waxa niri mataqaanaa bal horta garta gurbaa ka horeysa waxay yiraahdaan gur maanta ku wada hadal waa ka yeelay waan wada hadalnay waxay yiraahdeen nimanaa mataqaanaa balana siiya khamiistii ma siiyo waan ka yeelay khamiis shalay bay ahayd boorba ka soo kacatinay halkii baan nimankii halkii baas noo qabtay odayaasha hay qalintaas banadaha halkii may iban waxa ka marxaatiyaha oo kamid aha Sultan Saleebaan sub cadab badan kala yiraahdo dhan anu ma garanay magacaas cadab badan kala yiraahdo xaq kala hogaaminayay cadab gude waxa way hawshii sida uu soo agaasimay anaguna aan markaa doonayna inaan gabadhii ka wada hadalno oo dhaxayaan ku wada hadalno arrinka uu nagu deeriyay maanta oo shalay oo ahayd khamiis waxaan maanta halkan ka sheegayaa saddex qodob horta cadab badan waxaan leeyahay nibba habeen guuro waxa ka qori habeen kale waraawo mooday waa bari qori wuxuu yiri waxmaday waraawo qori xalay qori waxa xubada waraabe waxaan qotay qori waxa loo qan buuro habeena ka inta saanna ciida gaala waxaan leeyahay ciida galo hadii faras baalad ninkii dibis ka deg meel ka degu waay faras dibis ka degay meel ka degu waay makaasa aqal inni'a makaasa aqal inni'a qaas dagaal leeyahay dhaqanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliland waxaan leeyahay arrinkaasi arrin Soomaaliland ku fiican ma ahayn diinta saa ku fiican ma ahayn arrinka gabdhahana waa ogtihiin haddii gabadhooda in la isku diro ogtihiin waa in laga jawaabo Soomaaliland dhaqanka Soomaaliland ma fasaxan leeyahay waxaan leeyahay ciida galo haddaas degdeg arrinka uga bixin weydo boolasi uga bixin weydo raali gelin ka bixin weydo waxaan yeelanahay inagu taalo Soomaaliland safar u sheego salaam calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdullaahi Isfaare aniga ku hadlaya magaca ayladda Safeetismo waxaan marka hore u mahad celinayaa dhammaan ummadii Soomaaliyeed ee ka dareencisay dhacdadii foosha xun lahayd ee lagula kacay fanaanada Safeetismo sida hiil iyo hooba isla garab taagay arrintaana aad uga xumaaday aad baan ugu mahad celinayaa marka labaad sida wada sheegeen ciidagal arrintan inkastoo aan u dhanayn nimankii guddida ahayna hor yimid ee arrintan nagala hadlayay si dhaqana Soomaalinimo leh hablaha iyo arrintooda lagu arki jiray runtii ugu may hadleen si aan anshaxa ku wanaagsaneyn iyo nolol kulmeen nolol dhaqmeen ballantii ay qabteenna way ka baxeen dabeed halka markay taagan tahay waxaan u sheegaynaa Soomaali meel walba joogtaba inaan arrintan Safeetismo sida laga hadhay dadkeega iyo Soomaali meel kasta taagan tahay ay arrintaasi si adag looga jawaabi doono meel kasto in la gashana aan ka daba tagi doono ilaa xaqeedii iyo meel ka dhacadeedii iyo magacbiintii lagu sameeyay falkii foosha xumaa cidii geysatay ilaa ay raali gelin ka bixinayaan cadab guuleed la yiraahdo kuma odhanin waa inaan gumeed eragay fiicnayni waxaan idhi astaantii gubtiyo aynigii ma leh Shaafici Ishqi magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland